bal ka waran qiimaha ay leedahay haddii aad sabab noqoto inaad badbaadiso nolosha boqolaal carruur ah kuwaasoo dib u hela caafimaadkooda cagtana saara waddada guusha. magaalada Hargeysa waxaan kula kulmay in ka badan 300 oo carruur ah kuwaasoo lagu dadaalay sidii looga daaweyn lahaa xanuun aad u khatar ah kaasoo mararka qaar mugdi gelinayay inay noolaan karaan, balse haatan waxay dhibaatadan oo dhan kaga badbaadeen qorshahan oo ah mid ayuubahaan aad ii soo jiitay. sanadkii 2014 ayaa ahayd markii la bilaabay hindisaha qorshahani oo koox dhakhaatiir ay ka shaqeeyeen sidii u guulaysan lahaa barnaamijkani oo ah mid lagu daweynayo carruurta ku dhacay xanuunka macaanka, gaar ahaan kuwa aan awoodin inay bixiyaan lacagaha daawooyinka xanuunkan. barnaamijkan oo ah mid lagu badbaadinayo boqolaal carruur ah oo ku dhacay xanuunka macaanka ayaa ah mid sanad walba ay ku baxdo $10,000 kaasoo ay maalgeliso shirkadda isgaadhsiinta ee Telesom. barnaamijkan kaliya maaha mid lagu ilaalinayo caafimaadka carruurta yaryar ee xanuunka macaanku haleelay, balse sidoo kale waa mid lagu horumarinayo noloshooda maadaama haddii xanuun uu jiro aanay dhigan karin waxbarasho iyo fisa mustaqbalka noloshooda, sidoo kale aanay samayn karin jimicsi iyo ciyaaraha kala duwan ee xilliga carruurnimo. boqolaalkan carruurta ahi hadda waxay wataan noloshooda caadiga ah kadib markii ay si joogto ah u heleen daawada macaanka oo hore u adkeyd inay awoodaan. barnaamijyada noocan oo kale ah ayaa kuwa faa'iido u leh bulshada guud ahaan, gaar ahaan jiilka soo kacaya maadaama jiilka soo kacaya ay mar kasta yihiin mustaqbalka berito. qaar ka mid ah carruurta oo aan la kulmay ayaa ii sheegay in mustaqbalka ay ku haminayaan inay sameeyaan cisbitaallo gaar ah oo lagu xanaaneeyo carruurta oo haleelo xanuunka macaanka. Dr. Cabdirasaaq ayaa haatan waxa uu ka warramayaa barnaamijkani ay hindisihiisa lahaayeen 10 sano ka hor sida uu u bedelay nolosha carruurtana yaryar ee laga daaweeyay xanuunka macaanka. wallaahi waxaan oran karayaa dee wax aad iyo aad loogu farxo ilmo yaro aan wax alla wax daryeelo haysan oo kuwii ugu horreeyey markaan u nimid aan dawaba heli karin ayaa maanta waxay ka baxeen jaamacad, qaarkood waxay galeen iskuulla secondary marayaan. aad iyo aad maanta wax alla wax warwaro ka haystaa ma jiro inaanu markaa dhibkaa ciyaalkeena haystay aan ku dulqaado. runtii waxaan aad iyo aad loogu farxo weeyaan, waana mashruuc loo baahanyay in aad loo sii ballaadhiyo waayo baahidu way farabadanaysaa. maalin aanay tiro fara badani soo kordhayni ma jirto. waxaanu ka mid yahay xanuunadan bini'aadamka ku dhici kara ayuu kana ka mid yahay oo u baahan in aad looga howlgalo. shirkaddan runtii waa aad iyo aad farxad bay inoo tahay inaanu dee camal wanaagsan oo dadka iyo dalka wax taraya inaanu keeno shirkaddan ay maalgeliso. aad iyo aad baan ugu mahadsantahay shirkadda Telesom qaybtaa weyn ee ka qaadatay hawshaasi fulinteeda iyo maalgelinteedaba aad iyo aad bay ugu mahadsan. dhanka kale barnaamijkan ayaa waxaa ka hortagaya faqriga maadaama haddii aanay wax baran boqolaalkan carruurta ahi ay soo wajihi karto nolol adag, balse haatan taasi waa laga guulaystay. waxaana barnaamijkan lagula dagaalamayo xanuunka macaanka ee carruurta haleela ay bil walba daaweyn lagu gaadhsiiyaa boqolaal carruur ah kuwaasoo noloshooda bedelay. hooyadan ayaa waxay ka mid tahay waalidiinta ay carruurtoodu ka faa'iidaystaan barnaamijkan lagula dagaalamayo cudurka macaanka. maxay hooyadeed inayra macaan weeyaan macaanka wax ku dhacay 2 sano iyo badh iyadoo ah haatan oo siiyo dawadii khayr Allah siiyo wax dawadii iga caawiyaan isbitaalka Global iyo shirkadda Telesom intaas oo dhan buu iga caawinayaan 2 sano iyo badh baheed maantana 10 jir weeyaan ilaa xilligaa way siiyaan dawadu waa qaali. khayr Allah siiyo iyaga iga caawiya iyaga siiyo dawada aad baan ugu mahadnaqayaa. haddaba waxaa muhiim ah inaan ka hortagno xanuunada noocan oo kale ah kuwaasi oo ku soo badanaya guud ahaan deegaanada Soomaalida. waxaana aad u habboon inaan kaga hortagno isku duubni, wacyigelin iyo talada dhakhaatiirta oo si habboon loo maqlo. barnaamijkan ayaa ah ayuubahaan mid si weyn ii soo jiitay runtii, waana muhiim in barnaamijyada noocan oo kale ah laga sameeyo guud ahaan deegaanada Soomaalida.